وحيتاهي ومان هلين ومان هلين حود الشيء حنجر باع وقبطو والله حبقالي ولبا حركي حفلتي أسطانيو حلي باو قاري حسكمي وصبحا حرميو دبالديقا حسكمي وصبحا حرميو دبالديقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaal halkan waa stuudiyaha radio Hargeysa ee magaalada Burco dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono xuska 18 May iyo xasuustii shirweynihii 1991 gobolnimo la soo noqoshada dalkan Soomaaliland lagaga dhawaaqay kadib markii ay shacabka reer Soomaaliland walaalahooda koonfurta Soomaaliya oo ay la midoobeen 1960 ay kala kulmeen hungamadan hagardaamo iyo hantaaqooyin joogto ah oo aan loo miidaan dayeynin haddaba hungadan taariikhda madow ah kadib oo boqolaal kun oo qof ay u naf waayeen dib u raadinta qarannimada Soomaaliland ayaa waxa ay maalinta 18 May noqotay maalin hoosta laga xariiqay nasiib ahaan in dib loo hanto qarannimadaasi oo lagaga dhawaaqay 1991 shirka qabsoomay magaalada Burco oo ay ka soo qayb galeen beelaha Soomaaliland oo dhami laga saare burca laga sune salaam wa habeenkii suryadu galay laga saare burca laga sune salaam sarra alaka yago manusqamo Somaliland سر على كيغو منسخامو Somaliland سيراد مجاهد آدن أحمد ديريه آدم بردو ayaa halkaasi ka akhriyay go'aamadii ka soo baxay shirka kuwaasoo farxad iyo yididiilo geliyay kumanaan reer Somaliland ah oo u dhagtaagayay shirka inuu weligaa isu taago iyagoo qurux raacada laga hadlayay waa jimlaha qodobka koowaad ahaa qodobka muddo dheer baa laga dooday aad baa loo lafaguray waxaa laga xisaabtamay oo dib loo bileelacay 31 sano ee aynu dawladda ahayn wixii faa'iido haddii aynu waqooyinahay aynu ka helay iyo wixii khasaarayna soo gaaray baa si dhaba looga xisaabtamay may ahayn شرع عاطفيات مو هين ويعني ما في ستة حياة رمها لو قادنا أيوة محمد راي اللي تقدر العرب أيوة ما هين شرع أفطور وهو محمد راي وحلا كلام مروسنا أيوة وحنا شركة ديمقراطية اللي قدروا أيوة وعدوا لنا عد كذا يلا صراع يتقرب يخطأ ما تقدروا كسر شيء يسووها أنت عمرت تسيبها وواحد عطنا وحنا نغطيه وماشي كسر بحي إن كل يصب في سنة wax faa'iido oo la taaban karo saddex qodob baa laga helay oo iyaga laftoodu ku yimid dhibaato iyo tacab hawl badan loo soo galay oo dadka inta xoogaa joogtahay waxa weeye dekada berbera warshada sibirka iyo berbera ka samaysan iyo wadada laamiga wax kale oo horumar oo weyn laga sameeyay waa la waayay kuwaasna sida ay ku yimaadeen waa la wadaagay waxay ognahay warshada sibirka inay mararka qaarkood gaadhay in koonfur laga sameeyo dhagaxana laga guro maxaan ku dhahay halkay markaa ka samaysan tahay yaa xadkaa inay gaadhida loo yahay oo dadka xoogaa loo yahay
wax faa'iidaa intaas baa dhinaca laga soo qaaday waxa dhinaca kale ku qormay oo jira in khasaaraha aynu hadda ognahay ee ugu weyn yahay burburka iyo baabaa haysta maxaa ku dhahayn ka muuqda magaalooyinkeenii ee naf iyo maalba loo baaba'ay inay ka yimaadeen israacii ay israaceen koonfur iyo waqooyi ayaa halkan soo baxay markaa waxay noqotay labadii marka laysu miisaan inay miisaanku u badan yahay dhinaca khasaaraha sidaa awgeed waxaa la isku raacay oo shirkii isku raacay bal aragna israaci wuxuu inoo dhalae inaynu waqooyi gaarkiisa isu taago oo aanu koonfur raacin oo aynu teena kala barqad baxno oo tijaabino teena waqooyi gaar isu taago waa la isku raacay qodobkaa koowaad shirweynahan oo lagu qabtay guri dunsan oo hadda ku yaala magaalada Burco horena uu ahaan jiray qasrigii madaxtooyada ee gobolka Togdheer waqtigii dowladii keligii taliska ahayd Siyaad Barre wadanka ka talinaysay ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxdii iyo saraakiishii ururkii SLM aqoon-yahan waxgarad hoggaanka dhaqanka iyo bulsho tiro badan oo ka kala socday deegaanada iyo darafyada dalkan Somaliland rajadooda iyo himiladooduna ay ahayd inay helaan qarannimo waarta oo anfacda wasiirka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo waqtigaasi ahaa maayirkii magaalada Burco ayay ergeydii shirka ka soo qayb gashay ku soo dhaweeyay magaalada Burco العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وصحى اللياء وقفته شيوينها نبضيتها إياها كتنتها قبل المفوز إسلام مرنبات أنا وصحى اللياء مقعا بالشدة يدوينها يبرعو وحانو كسو لولينا مقالة يبرعو مثل اللوغية حي مالتا gudoomiyaha ururka guddida fulinta xubnaha golaha dhexe hay-adaha dastuuriga kala duwan dhammaan ideergarabtada iyo aqoon-yahanada dhammaan ergooyinka kala duwan ee ka yimid beelaha kala duwan waxaananu leenahay si niyad sami ah si ufuurnaan ah si laabxaanaan ah ugu soo dhawaada magaaladayada magaalada Burco waa magaaladiinii waxaana filayaa inaad ka arki doontaan arrintaa iyada ah ama soo dhaweynta dareenka bulshadayada oo ka muuqda dhammaantoodba shirkaasi lagaga dhawaaqay madaxbannaanida qaran aynu maanta hadhsanayno ayaa waxaa majaraha u qabtay madaxweynihii ugu horreeyey ee Somaliland marxuum Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur kaasoo nasiib u helay in muddo 2 sano ah uu hogaamiyo dal dunsan iyo shacab daalan waxaanu madashii shirka ka soo jeediyey khudbad dhaxalgal ah oo soo jiidatay bulshada reer Somaliland الله حفظني الله أركيني أميني أيوه القلب والهلق الله يهر والهلق الله يسوي والله أتوقع هو وين ركب ماذا أساسك لو القليلة إيوه إنه ماذا لو أنت تشيل لها راح تشيل لها خبك ما الله تكلم أنا أبغى نصدق لو تبى الكتل والكتل marka xuquuqda dimuqraadiga inay ku dhaqano oo adkeeno iyo ku fiican waana mid ninkii la doortay oo waqti leeyahay hadii waqti loo ogolaan waayo oo waqtigu shaqeyn waayo ku kala shaqeyn maayo saywe حوي ninka umadu doorato ay waqtigiisa la siiyo hala canaanto hala naqdiyo hala qabto laakiin marka taa ku dabaya xuquuq socon maaya kala wadafay waqtigiisa madu وما دقت كرتسرة فكادت إنه حوالي جد جامعة إنه أسوي إنه استمتع إنه حلقة جد جامعة السعرة أو إنه وحبا تذكرينه والدولة المركز تشوفته لقبنه دي كحرنته وحنا هذا الله شوف يربح حي مدير بان واحد ما أنت سومالي الله إذا ما مغرب تعلم قومي
sheekhoodii shariifkoodii ciidamadoodii siyaasigoodii waa wada joog ilaahay shir khayr qaba inoo ka dhigo annaga waxaan leeyahay maanta anigu taladii madaxweynaha ummadda anigoo ah yaan leeyahay taladii idinkaa idiin dhiibay ruuntida 150 joogta idinku ka soo galay assalaamu calaykum waraxmatullahi doctor maxamed cabdi gaboose ayaa sharaxaya hamigii higsigii bilaa shuruudda ahaa ee shacabka Soomaali waqooyi qabeen waxaanay noqotay mid ay ku hungoobeen niyayirkoodii taasina waxay isu bedeshay in hantidii iyo himiladii ay ku darsadeen shacabka isku midka ahaayeen ay ka dhaxlaan holac istirsooc cadaadis iyo dil waxaanay natiijadu noqotay in malaayiin muwaadiniinahi ay qaxoonti ku noqdaan geed hoostii guryahoodina lagu dumiyo hubkii ay ku naaloonayeen maartay gobolada waqooyi ee maanta Soomaaliland nasiib darada timid waxa weeye in maamulkii oo marka ahaa dawladda Afrikada Madoobeed ugu xoog badneed lagu tirinayay dawladda Afrikada Madoobeed oo hubkii ugu faraha badnaa iyadoo ka faa'iideysanaysa dagaalkii qabooba marba dhan ka helaysay oo wada hub iyo wada ciidan ahaa in lagu kiciyay dadkii loo abtirinayeen asana maarata ay ka soo jeedaan magaalada Hargeysa magaalada Burca tuulo walbaba in qofkii maarata haday kursi tahay haday hantidooda loo bareeray dhac tahay haday dil tahay haday xabsi tahay haday ciqaab nooc allaala noocii bini aadamku yaqaanay ee badiyo yihiin wixii laga soo bartay shuuciyada laga soo bartay ay tahay in lagu la kacay kadib markii jabhadda Islam ay gudaha soo gasheen oo xoreyntii dalka ugu weyneed ay gashayna dawatii dhacday inaan loola abayeelin waxa laala wixii hub lahayay aeroboorka iyo xeriyooyinka magaalada Hargeysa Burco meel walba yaalay in isla magaaladii gudaheedii iyo shacbigii xukuumadiis halkay ka ilaashan lahayd halkii haday xal raadinayso ay raadin lahayd inay shacbiga waxay ka tabanayaan waxa dhibaato ay maartay in dhibaatadoodii loo geystay xasuuq waxa loo qiyaasaa 50,000 oo ruux waxa loo qiyaasaa 50,000 oo ruux in lagu dilay maartay Soomaaliland gudaheeda waxa barakacay 100,000 oo guryahoodii hantidoodii ka baxay waxa dibadaha ku helay kanaaco tagfi nolol adag ayaa maartay ay la kulmeen halkan dheer iyo marxalado kala duwan oo la soo galay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ruba qarni kadib waxa uu gaadhay horumar ballaaran oo dhinac kasta ah waxaanu ku tallaabsaday guulo wax ku ool ah oo ay shacabka reer Soomaaliland ku naaloonayaan nabadda iyo horumarka ay haystaan inay ku gaadhaan ictiraaf buuxa waxaanu dalka Soomaaliland si weyn uga dhex muuqday 20 sano u dambeeyay mandaqada geeska Afrika ee ku yaalo Cabdi Maxamed Ismaaciil Maxamuud Maxamed Jaamac iyo Koos Farax Khaliif oo kamid ahaa mujaahidiintii ka qayb qaatay dib u xoreynta Jamhuuriyadda Soomaaliland goobjoogna ka ahaa shirkii lagaga dhawaaqay gobonnimo la soo noqoshada dalka Soomaaliland ee ka dhacay magaalada Burco ayaa ka waramaya dareenkii maalintaasi taagnaa kana dareen celiyay halka uu maanta marayo dalku waxaan kamid ahaa mujaahidiintii gashay 91kii Berbera ee ka wareegtay meesha la hado dabahal ka guurnay ciidankii lagaga yimi baan ahay Berbera ee goobjooga ku haray waqtigii lagu dhawaaqayay waxaan soo kaxaysanay 16 gaari oo tiknika oo gaadiidkii aan Berbera ku haysanay ah waan soo guurnay Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ku jira ris hoosta ayaanu maxay heetooy ugu nimi waxaanu kaga qabanay gaad bulshadii aan Berbera ka soo raacnay iyo waxayagii 3 gaarana naga dhacay dawga bulshadii kale wixii asana joogay Burcana meeshii isugu wada nimi habeen iyo maalin ayaan ku gudaanayn madaxweynaha oo markaa ris hoosan gurigan martida ku jira waa muumana kala dareerin shacab iyo dadweyne iyo ciidan iyo waxyagba sidaas awgeed waxa la go'aansaday gurtidii odayaashii wixiiba dhaqamadadii iyo gadoodkii ay sameeyeen ciidanku in waxna laga soo yiri Berbera waxa la nagu darayaa xamar dabada waxaan soo guranay hubkayagii waxaan u soo baxnay Burco una la hadlay chairmanku wuxuu nagu wax la idinku darayaa ma jirto haddana waxaanu ilaa inta lagu dhawaaqay waan fadhiinaa meesha markii aan soo baxnay gobolkan baan nimi ninka golos leeyahay imaka kabtanka militariga ah ayaa taagay calankii markii uu lagu dhawaaqay Soomaaliland ee calanka saa loo taagay xafladii aan ka qayb galay waan noqonay dib aan ugu noqonay Berbera
dareenka guud ee ummadda reer somalilan waxay ahayd mid midaysan mid qiiro leh mid ay ka wada midaysan yihiin inay goostaan oo ay goonni isu taagaan isla markaana shirkii loo fadhiyey ee lagu doonayay in lagu goosto ee lagu dhawaaqo goonni isutaaga somalilan xitaa dadku way sugi kari waayeen waxay go'aansadeen inay isweer ka qabtaanba oo ay yidhahdaan ku dhawaaqa degdeg madaxdii markaa fadhiiday ee doonaysa inay ay ku dhawaaqdo intay sugi kari waayaan inay isla judhiiba intay tawaangi iyo waxyaabaha noocaasa soo waxaystaan ay yidhaahdaan nagaga dhawaaqa halkaa iyagoo ku midaysan oo aan lahayn ujeeddo kale ay doonayaan inay goonni isu taagaan oo halkaa lagaga dhawaaqo isla judhiiba deetana waxaa dhacday in halkaa ay ku soo urureen inay yidhaahdaan ummadda reer somalilan waxay doonaysaa goosasho oo ay soomaali weyn ka madax bannaanaato dabeetana madaxdii waxaaba lagu khasbayba iyagoo iyu diyaar aha inay madaxda ku dhawaaqdo inay ka sugi kari waayeen wakhtiga ka dhawaaqayeena ay go'aansadaan inay ka dhawaaqsiyaan halkaasoo ay yidhahdaan somalilan way go'day taas ayaa dareenka ummadda reer somalilan ahayd oo ku midaysnayd oo ay wada doonayeen oo aan qof ku khilaafsanaan lahayn taasaa ay ahayd ujeeddada koowaad ee ay ku midaysnaayeen ummadda reer somalilan oo aan xoogaan loo wahay haddaannu nahay annagu halgamayaashii dalka u soo halgamay ee lixaadkooda iyo naftoodaba doonayay inay huraan oo ay ahayd waxa ka weyne aannu doonaynay in ahayd inaannu hantino oo aannu helno xornimo somalilan taasna aannu anagu doonayno xitaa mujaahidiintii faraha badnayd inay xitaa tiknikadii iyo hubkii ay haysteen ay ku soo istaadhaan oo yidhahdaan ka dhawaaq halkaa iyagoo ummaddoodii iyo dadkoodiina wata taasay ahayd ujeeddada koowaad ee lagaga dhawaaqay halkan somalilan wallaahi magaalada burco lama qiyaasi karo dareenkoodii shucuurtoodii markaa ay ahayd doonitaanka iyo jiritaanka somalilan in halkaa laga dhawaaqo waxay dad aad iyo aad mooralkoodu u wanaagsan yahay dad niyaddoodu wanaagsan tahay dad u heelan inay helaan madax bannaanin jamhuuriyadda somalilanna oo ay ka madax bannaanayaanayaan soomaali weyntii markii hore ay ku khaldameen ee ay naf iyo maalba uga soo horeen halgan dheer oo ay u soo galeen oo naf iyo maalba lahayd oo markaa ku cusbayd ayay doonayeen inay helaan midhaheedii dabeetana saasaa koosgaraysay inay somalilan halkaa laga dhawaaqo oo ay taa ilaa hadda ay tahay minaha jiritaanka somalilan ay ku fadhido tii wakhtigaa laga dhawaaqay halkan waxa weeyaan aniga oo ah koos faarax khaliif ka tirsanaa mujaahidiintii snm ka tirsanaa 13 hablood ee ka soo galay Itoobiya ee ciidanka la socday maalintaa waxa la taagnaa dadku yididiilo ayuu taagnaa markii dawladdii Soomaaliya burburtay in gooni isu taag la helo baa lagu xisaabtamayay waxaan ku yiri dhanbaa looga soo wada jeeday waa laga wada halgansanaa way dhacday waa la saaray calankii waxaan kugu yiri goobjoog baan ka ahaa maalintii laakiin shucuurtii maalintaa taagnayd alxamdulillaah maanta aad iyo aad bay u wacantay 100% marka waxa weeyaan calanka Soomaaliland ilaahay ha xoojiyo ha adkaado waxaan ku yiri alxamdulillaah rabbil caalamiin baa lagu jiraa dhalinyarada Soomaaliland reer Soomaaliland dhalinyarada waan ku celcelinayaa dhalinyarada reer Soomaaliland ha xisaabtamaan waxaan ku yiri ha iska daayaan tahriibta waxa weeyaan annakoo dhalinyara oo dumara oo nusa waxaanu ku xisaabtamaynay sidii dalkii hooyo loo heli lahaa iyaguna maanta waxay ku xisaabtami lahaayeen dalkooda sidii ay uga shaqayn lahaayeen intay ka tageen inay dal kale xoojiyaan inay dalkoodii oo hodana waxaan ku yiri dhul kale ku hamiyaan taasi waa qalad dhalinyarada reer Soomaaliland iska dayso caaqil cilmi caaqil Salmaan Ducaale ayaa isbarbardhig ku sameeyay waqtigii cadawgii rejiimka ahaa waxa suuqa ka geystay dalkan Soomaaliland iyo horumarka ay gaareen shacabka reer Soomaaliland maantii magaalada la soo galay in walba oo garanaya guri walba gurigiisa geed garawaaya ka dhex baxay kadinkiisa ka sii baxay xitaa quruunimo helin wadankan waxaan tiri tolomiyaan qorina kaga sii tegin hal jiingad kaga may tegin hal qoriye kaga may tegin yacni waad isku siisay marka deeminka alxamdulillaah in ilaahay ma hadnaqno oo waxyaalaha ku faraxsanahay oo waxyaalaha ilaahay in loogu mahadnaqa
inagoo maanta tayga wada xidhan oo suudhka wada xidhan wasaaradaheenni wada dhalaalayaan gobolladeennii dhalaalayaan maamul haysanaa dowlad haysanaa isku dhammo haysanaa nimco taagan nabadgelyo haysanaa de markaa waxa weeye inaynu iska seexanno uun de maxaynu kale u baahannahay de waddankiinni waanu xoraysannay inamadeenii ka dhintayna ilaahay u naxariisiyo ummadeennii naga geeriyootay mustaqbal wanaagsanna way inooga tageen kuwa noolna waxaanu leenahay mujaahidiinta ha loo gargaaro kuwii dhintay ee u dhintay waddankana somalilan wada mujaahid beeda cid gaari ma sheegan kartee naf iyo maalba oo la wada bixiye dee kuwaana ilaahay u naxariistay inteena kalena dee nimcada ku badhaarno ila waa aragnaa jaarkeennii maayir ku-xigeenka degmada burco maxamed xasan jaamac xoday oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa shirweynihii 1991kii lagaga dhawaaqay go'aansitaanka dalka Somaliland ayaa ka waramaya muuqaalkii guud ee shirka dareenkii dadka iyo halkii ay taagneyd maalintaasi magaalada burco iyo halka ay maanta marayso maalintaasi maalin reer Somaliland ku qaaliye bay ahayd waan xasuustaayo raggii dhalinyarada ahaa ee joogay baan ka mid ahaa waxay u ahayd reer Somaliland intii runtii ku nafbaxday iyo intii ka badbaaday intii dhaawacantay iyo agoomihii runtii ka soo haray raggii ku geeriyooday mujaahidiintii ku geeriyoodayba maalintaasi waxay ahayd maalin ay ku ilaaween runtii ujeeddadii ay lahaayeenna ay gaadheen baan u arkaynay maalintaa jawiga burco wuxuu ahaa jawi farxadeed leh dadku islaab qaadayeen madaxdii hogaaminaysay ururkii SNM ee hogaaminayay gudoomiyihii ahaana madaxweynihii ugu horreeyay reer Somaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo dhammaan ku-xigeenkiisii Xasan Ciise Jaamac waxaan indhahayagu qabanayeen madaxdii SNM hoggaankeedii oo aan ka maqnayn oo guushii ay u soo hooyeen reer Somaliland runtii isgarab fadhiya oo isu farxadoonaya oo ku faraxsan wixii ay soo macnaa u soo dhinteen ay u soo halgameen inay maanta midhaheedii hayaan arrintaasi farxad bay maalintaa burco jawigu aad buu wacnaa guriga arkaysaan maanta laga dhawaaqay ee gudoomiyaha gobolku arrintan uu maanta hogaaminayay ee hormoodka yahay inaanu ka dhigno guri masxaf oo laga runtii gudihiisana library laga sameeyo mujaahidiintii dalkan soo halgantay iyo ciidii wax soo qabatayba dhexdiisa loogu yimaado sawiradoodina goobtaas laga dhawaaqay de farxad weyn bay maalinta ahayd 25 sanadood ka bacdi ku dhawaaqistii gooni istaaga Somaliland lagu soo ceshaday iyo maanta waxa u dhaxeeya horumar aan la taaban karin jaamacada ma jirin iskuulo ma jirin biyo ma jirin caafimaad ma jirin maxaan ku raahday hay'adii dawladdu may samaysnayn ujeedada maanta 25 sanadood iyo nuxurka ka soo baxay wuxuu ahaa in Somaliland halkay gaadhay runtii aan dalal badan oo Afrikaan ah oo ictiraaf haysta caalami aan gaadhin nabad baa la hayaa ardaydii baa guri kasta oo maanta 10 qof joogan waxaad arkaysaa in 8 jaamacadihii ay ka baxeen waxaad arkaysaa in lagu naaloonayo in ujeedadii kama dambaysta ahayd inaynu runtii gaadhno waana ku faraxsanahay reer Somaliland iyo maxay ahayd cidii arrinta ka shaqeysay maalinta 18 May waa maalin mucjiso oo ku xardhan qalbiyada shacabka reer Somaliland waana maalintii la xaqiijiyay 1991kii soo celinta gobonnimadii ka halowday ummadda reer Somaliland ee ay kala kulmeen hungada caburinta xasuuqa iyo cadaadiskii joogtada ahaa waxaana shacabka reer Somaliland hadda isu diyaarinayaan xuska dabaaldega sanad guuradii 25aad ee ka soo wareegtay waqtigii ay dib ula soo noqdeen xorriyadooda sanad walba waxaa si weyn guud ahaan looga xusaa dalka Somaliland iyo dalalka kale ay ku nool yihiin shacabka reer Somaliland xuska maalinta qaran ee 18 May taasoo ay bulshada reer Somaliland ugu bandhigayaan caalamka sida ay uga go'an tahay go'aansitaagoodu isla markaana ay ku xaqiijinayaan inay yihiin dal buuxiyay shuruudihii looga baahnaa una qalma in la siiyo ictiraaf buuxa xaqiiqadu waxay tahay rumaan helin rumaan helin xodxodashee xinjir baa u qubato waa loo xabaargalay qaran waliba xarakiya xafladiya astaaniyo xillibaa u gaaree xuska May u soo baxa xurmeeyo dabaaldega xuska May u soo baxa xurmeeyo dabaaldega
حسكمي وصباحا حرميو دبالديقا حرني مدى دلكيني وحاسلوني ديسيو وحمديا برواقنا حرني مدى دلكيني وحاسلوني ديسيو وحمديا برواقنا حنجر باو قواتو والله حبقالي حقيقة waxay tahay kumaan helin xodxodashee xinjir baa u qubato waa loo xabargalay عسكمي وصباحا حرميو دبالدقا عسكمي وصباحا حرميو دبالدقا dhegaystayaal guud ahaanba waxaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan dib ugu milicsanaynay shirweynihii lagaga dhawaaqay 1991 May go'aansitaanka Somaliland ee ka dhacay magaalada Burco waxaanad ka dhageysanayseen radio Hargeysa waxaana idin soo saaray idinlana socodsiinayay anigoo ahaa Siciid Salabaan Nuur intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh